haddii maanta qof waddada iska socda aad weydiiso su'aalah cirka ama isbeyska hawada sare ma leeyahay waddooyin sida dhulka oo kale ah, waxa ay u badan tahay in uu kugu jawaabi doono ma lahan, ama waxaa dhici karto in uu ku dhaho cirka waxa uu leeyahay waddooyin laakiin ma faahfaahin karo. haddaba su'aal dadka maanta nool xitaa ay ku dhibtoonayaan in ay ka jawaabaan ayaa qur'aanka kariimka 1400 sano ka hor dadkii noolaa waxa uu u sheegay in samada ay leedahay waddooyin nidaamsan. cilmiga horumaray ee falaga waxa uu arkay maanta iyada oo laga faa'iidaysanayo dayax-gacmeedyada horumaray waddooyinka cajiibka ah ee quruxda badan ee hawada sare alle uu ku qurxiyey. alle waxa uu qur'aanka kariimka uu ku leeyahay waxaan ku dhaartay samada u saaxiibka ah waddooyinka daatul xubug. waddooyinkani samaduna waxaa cilmiga looga yaqaanaa orbit ama madaar afka carabiga sida loo yaqaano. suurtagal maaha in qof dhulka isaga oo ku sugan in uu ka arko qadadka meereeyaasha xiddigaha ay kala leeyihiin iyo wareegoodii. waxaase cajiiba in dadka waadhow in ay fahmeen mucjisada aayaddani. mar waliba ee cilmiga uu horumaro bani aadamku waxa uu fahmayaa tafaasiisha dheer ee aayadaha qur'aanka, waayo qur'aanka kariimka waa mucjiso qarni waliba iyo xilli waliba bani aadamka si joogtaa noloshiisii ula falgeli karo. habeenkii marka uu qofka uu fiiriyo cirka waxa uu arkayaa xiddigo aad u badan, balse dadka badankoodii maskaxdoodii kuma soo dhacdo xiddigyadani socda halka ay u socdaan iyo dhaqdhaqaaqa xawaarahoodii inay ka fakaraan. xitaa isma ay weydiiyaan in xiddigahani ay socdaan ama in kale. xitaa dadka badankoodii kumaba baraarugsano in xidiguhu ay socdaan. sidoo kale dayaxa ayaa xilliyada 12aadka ee sida waadaxa uu u muuqdo si toos ah ayay u arki karaan dhaqdhaqaaqa dayaxa, laakiin waddada dayaxa uu ku socdo iyo xiddigaha ay ku socdaan dad isku daya in ay daraaseeyaan aad ayay u yar yihiin. qur'aanka kariimka alle waxa uu ku leeyahay qoraxda waxa ay ku socotaa qad iyada u gaara, taasina waa awoodda allaha casiiska ah ee wax waliba og. dayaxuna waxa uu leeyahay manaasil ilaa uu ka noqdo caleen geed timireed oo gabowday, yacni bisha marka ay dhammaato. suurtagal maaha in qoraxda ay gaarto dayaxa, yacni in uu ku dhaco ama ay ka hormarto. sidoo kalena suurtagal maaha in habeenkii uu ka soo hormaro maalintii. mid waliba qad isaga u gaar ah ayuu ku socdaa. suuradda yaasiin. waayo dhulka aynu ku noolnahay xitaa sistamka qoraxdeennii oo dhan meerayaasha ku dhex jira habeen iyo maalin hadba waxa ay ku xiran tahay socodka qoraxda. wareegga qoraxda iyo dhulkana waa halka habeen iyo maalin ay ka samaysmaan. dhinaca qaaradda qayb ka mid ah marka ay qoraxda iftiinkeedii ay ka qarsan tahay, qaybta kalena maalin ayay u noqotaa. wareegganina ilaa qiyaamaha sidani ayuu ku socon doonaa sida qur'aanka kariimka alle uu ku sheegay. koonka oo dhan waxaa la qiyaasiyaa 100 milyan oo galaksi ah in ay jiraan. waa qiyaas oo keliya. galaksi welibana in ka badan 100 milyan oo qorax ah ayaa ku dhex jirto. qaarkood waxa ay ka waaweyn yihiin qoraxdeennii. sidoo kalena waxaa la ogaaday qoraxdeennii marka loo barbardhigo xiddigaha kale aadka uga waaweyn inay aad u yar tahay. 100 bilyan ee galaksi ah mid walba dhexdiisii waxaa ku dhex jiro malaayiin meere. mid walbana waxa uu sidoo kale uu leeyahay satellite, yacni dayax isaga u gaara iyo qorax weyn oo iftiimisa iyo xiddigo malaayiina oo galaksiga qurxiya. haddaba bal qiyaas sistamkeenii qoraxda oo keliya ayuu bani aadamka uu ku dhibtoonayaa sidii uu u fahmi lahaa. koonka oo dhan laga soo bilaabo sistamka qoraxdeeni iyo meereeyaasha xiddigaha qoraxda iyaga oo bilyonis xaba ah in ay jiraan, mid walibana qad isaga u gaar ah in uu ku socdo. waa wax cajiib ah oo ka baxsan awoodda iyo fahamka iyo maskaxda bani aadamkaba. haddana bilyonis xabo mid waliba waxa uu leeyahay waddo isaga u gaar ah uu ku socdo. ma jiro wax bilaash ah oo bilaa dhaqdhaqaaqa koonka iska fadhiya. wax waliba waxa ay ku jiraan shaqo iyo dhaqdhaqaaq. haddii cimrigoodii uu dhammaadana sida xiddigaha oo kale foom kale ayay isku beddelaan, sida black holeska oo kale. waxyaabahani oo dhan qofka marka uu indhaha uu mariyo
waxa uu arkayaa daciifnimada xaddhaafka ee bani'aadamka iyo kaa'inaadka marka la fiiriyo sida uu u yar yahay una tabardaran yahay. waxa uu sidoo kale bani'aadamku arkaya awoodda weyn ee allaha waxyaabahani oo dhan abuuray. kelimada ugu horaysa ee qofka waxyaabahani marka uu arko afkiisii ka soo bixi karto waa alle ayaa ka nasahan xumaan oo dhan. dhaqdhaqaaqa xiddigaha iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa kownka ka jiraba aqoon-yahanadii adduunka soo mara oo dhan shaki iyo su'aal ayay ku reebtay. faylosofkii hore ee Giriigga Platon oo kale waxaa la sheegaa dhaqdhaqaaqa kaa'inaadka ka jiro in uu ku tilmaamay in ay daliil u tahay in sistamkani oo dhan alle inuu wado. Aristotelesna waxa uu isaguna dhaqdhaqaaqani u daliishaday marka dib uu u raacay ugu dambayn mid aanan dhaqdhaqaaqin ee azaliya in waxyaabahani uu ka dhaqdhaqaajinayo, yacni xikmad rabbaaniya in ay ka dambayso. raggani iyo kuwo kale oo badan waxa ay aad uga walaaceen dhaqdhaqaaqani kownka ka dhex jiro, waayo caqliga xitaa qofka shaki ayaa geli kara haddii uu arko wax si joogta ah daa'ima dhaqdhaqaaq un ku dhex sugan. tusaale, elektaroonada atoomka si joogta ah daa'ima waxa ay ku jiraan socod. kaa'inaadka oo dhan haddii aad fiiriso isku dhaca atoomyada dhaqdhaqaaqoodii iyo natiijada ka dhalan doonta enerji ahaan dhammaad iyada oo aanan lahayn in weligoodii sidani ay u socdaan saacad welibo xilli welibo si probleem la'aana aad ayay u adag tahay in qofka waxyaabahani in tafsiir uu helo ilaa in uu dhaha un mooye alla ayaa iska leh maamulka samada iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba. haddii dhaqdhaqaaqani kownka uusan jiri lahayn sistamka oo dhan ayaa burburi lahaa. suurtagalna inooma noqon lahayn in hal daqiiqa xitaa in dhulka aan ku noolaano. cilmiguse marka uu hormaro bani'aadamkuna wax badan oo ka qarsoonaa uu ogaado 1400 sano ka hor dadkii noolaa in qur'aanku u sheego in hawada sare alle inuu u yeelay waddooyin qurux badan oo waxay ku socdaan waa ishaaro ku tusinaysa xaqnimada qur'aanka kariimka. waxaase cajiiba aayadahani alle uu ku sheegay waddooyinka hawada sare waxaa ku xigta aayad kale oo alle uu ku leeyahay innakum la fii qowlin mukhtalif, waxaad adinka ku dhex sugan tihiin hadal iskhilaafsan. iimaankuna waxaa laga leexiyaa qof dhumay. sida dhabta ah dadka iyaga oo daliilkani arkayo sidoo kalena iyaga oo akhrinayo aayadaha kownka indhahoodiina ku arkayo khilaaf ayay weli iyo shaki ayay ku sii dhex sugan yihiin. qofkiisa qalbigiisii loo furo fahamka aayadaha qur'aanka iyo akhrinta kownka waxaa la siiyey wax aad u weyn, nasiibkaasina dadka badankoodii ma ay wada helaan. ugu dambayn, maanta bani'aadamka waxa uu si toos ah u arkaa qadadka qur'aanka kariimka 1400 sano ka hor inoo sheegay. waagii hore dadka keliya qur'aanka ay akhrin jireen, laakiin fursadda la siiyey dadka maanta nool oo kale ma aysan helin. qur'aanka kariimka casriba casriga ka dambeeya iyo mar waliba oo cilmiga bani'aadamka uu hormaro faham xeel dheer oo ku tusinayo xaqnimada qur'aanka ayaa laga dhex arkaa.